waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane aqoon lagu barbaarsaa bulshada Soomaaliyeed loo baxdaa waa halka shirweynaha waxbarashada xafiiska waxbarashada dowladda cusub ee sanadka 2015 istiraatiijiyada cusub ee waxbarashada sanadka 2015 istiraatiijiyadu way isbedeshay qodobka saddexaad waa muunada cusub ama dariiska ardayda muunada cusub ama dariiska ardayda sanadka 2015 heerarka kala duwan ee ardayda imtixaanka ku galayaan maqal ku qaadanaysa sanadka 2015 sida fasalka lixaad fasalka sideedaad iyo fasalka tobnaad oo lixaad uu ku jiri baad soo beeray waa isbeddelka siyaasadeed istiraatiijiyada cusub ee sanadkan 2015 qodobka shanaad oo kor u qaadida tirada qaybgalka gabdhaha ka qaybgalka macnaheedu kor u qaadno gabadh wax baratay oo bulshada wax baratay taas lafteeda macnaheedu dhanka ka qaybgalka aynu kor u qaadno gabdhaha waxqabadka kala duwan ee ka qaybgalka bulshada sababtiisu qodobka wuxuu noqon doonaa qodobka lixaad qodobka toddobaad xoojinta iyo caawinta guddiyada waalidiinta iyo barayaasha inaynu sii xoojino haddii jiraan inaynu sii xoojino haddii ayna jirnaan inaga macnaha aynu sii noqonaysaa qodobka sideedaad waa dabagalka ardayda in macnaha ardayda dabagalo maxaa soo xaraaday maxaa se maqan shalay maxaa soo xaraaday maanta maxay isbedelay beri maxaa inaad macnaha si aad dabagalkeeda lagu xoojiyo qodobka sagaalaad waxbarashada dadka waaweyn إذا لفت جد معناها تدخل وحبرشة الجمهور يقولون إن وحبرشة تدخل ويقولون كان سنة سيقول وحبرشة بالضبط يعني سكولها إن الحب سعره ومثل المرمانة إذا نقول يعني هذين من ترشد الاستهلاك قالوا كل ما يسبدل السياسة استراتيجية عصور كل سنة كان حديث وحبرشة هي مشروع معتني إلا وصل اليوم فصل الاتحاد فصل اللحاد امتحانك هير ديغان اللي هو بايجر فصل السدياد wuxuu soo dhacaya fasalka lixaad sanadka wuxuu noqonayaa in laga qaado ardayda fasalka lixaad dhigata fasalka imtixaan sideed oo heer deegaan ka yimaada yaa laga qaadaya sanadka waxa laga qaadayo kaliya fasalka lixaad ma imtixaanka laga soo diyaarinaya ardaydaas fasalka lixaad oo kaliya ayaa laga soo diyaarinaya waa sanadka laakiin sanadka dambe duuleeda waxa laga soo diyaarin fasalka shanaad iyo fasalka lixaad oo isku duuban امتحان الله وصل ديارنا دوليرة تاس معناه تسلا وسعتان وحوق الله صاروا دكشيرة وصل حلقة دي 1 up to 6 أما كوباد إلا اللحاد ودكشيرة وصل يا ليلى تضبادي سدياد وحنا قنيا دكشيرة لحاد دكشيرة دحين قنيا تضبادي إلا سدياد دكشيرة لحاد سيالات إلا الله بيتونات وحنا قنيا دكشيرة سرع سكندري واحد secondary وين أولا واحد جريس preparatory secondary preparatory school هو هنتري هذا لكن preparatory مجرو هو secondary بالي 9 up to 12 سيارة إلى البيتونات و secondary school باستراتيجية عصبية سنة كان لو كل شيء تم له بدلي dhammaan shirweynaha waxbarashada iyo ummadda ka soo qayb gashay waan salaamayaa iyo maamulka xafiiska waxbarashada inta markaan ka soo gudbo kulay maanta waxaynu isugu nimid waa shirweynihii joogtada ahaa ee waxbarashada shirweynaha joogtada markii la yiraahdana waa shir sanad walba la qabto laakiin weli ma aynaan qiimaynin shirkii kal hore maxaa ka soo baxay kii sanadkii hore maxaa ka soo baxay kanise
maxaa kii ka khaldanaay oon uga gudubnaa weli ismaynaan odhan waxaana loo baahan yahay shirarkii hore la soo qabtay shir sanadeedka ahaa inaanu ma garanaysaa khibrad ka qaadanno dib ugu noqonno wixii ka khaldanaana aan saxno wixii sax ahaana la qaato marka anu waxaan leeyahay barnaamijku waxa la yidhahdaa waxaan u soo joogay baa jirta waxa weeye waxbarashadan horta anu fikirka aan ka qabo inta ugu badan dadkii ku rafaaday baan anugu saacaddan aan ka hadlayo kuma faanayo laakiin waa dhab jirta erayaan u isticmaali jiro hadda waxaan maqlay lagaga hadlayo quracay iyo berigii saalaha iyo halahaga iyo meelaha sida fiican ma garanaysaa waagii wax u fahmay bay ahaayeen marka waxaan leeyahay shalay waxbarashadu waxay ahayd waxaan u malaynayaa raggii waxa ka joogaan garanayo maxamed cabdiraxmaan iyo in badanna waan ka sheegay shirka 9 nin baan helay oo transcriptigii tobnaadka loogu gudbaya haysata markaan soo degnay magaaladan 9 nin baan helay 9kii nin baan soo shaqaalaynay aan Xuseen inuu kamid ahaan malaynayaa 9 nin baan macal dhagax la kulli sugay 9 nin baa degmada Gursum laga helay laakiin maanta inta halkan fadhida waxaan u malaynayaa ka ugu yar baa 12 ku fadhiya ka kale dibloom buu haystaa maanta 6 bilood nin ku shaqaynaya ma jiro taasi horta waa mahad ilaahay dad wax soo bartay inay isku qabsadaan shaqana waa faa'iido la gaaray dakhliga daraad wax noo qabtaan weyne cabdicasiis oo hal field baan u malaynayaa maxaa la odhan jiray hal semester qaatay oo xisaaba ayaanu ku shaqaalaynay dakhliga marka maanta horta waa mahad ilaahay laakiin xagga sanadkan markaan u soo noqdo sanad walba in aan u nidhaahno waxbarashadii baynu shirweynaheedii qabanaynaa kii kal hore iyo kii maantana wixii kii kal hore ka khaldamay aynaan baranina waa dhibaato inteeda leh marka anu waxaan leeyahay kulley wax badan oo u soo joognay haddaan ka dabagallo wakhtiga aynagu dheeraanayo dad badanna u sugaya waxaan leeyahay anigu kow qoyska ciyaalkiisa waxbarashada gaadhay tiradoodu waa imisaa ku sii jirtay imisaa gaadhay oo aan soo gelin intii ku sii jirtay imisaa habsaanka qoyska in la yidhaahdo inta gaadhay imisaa soo gashay sanadkan imisaase habsaanka intaa keliyata weeyaan sanad walba waxaa la qiyaasi karaa tiro cayiban markii loo qaybiyo barsentiga waxbarasho ahaan waad haysataan inta galaysa iskuulka yaa gaadhay oo weli la maskamin haddii la yidhaahdo kow aqal walba waa laga helaya horta aqalkan ka soo baxay saakayba tu yar faraqay haysatay ilaahay hor iskuulkaygee wayna gaadhay waa run 6 jir weeyaan 7 jirkii baa hadda gashay dadka saasana inaan geynaa loo baahan yahay midna waxaan la yaabanahay annagu xilli dadku uuna dhandhaminin waxbarashada macaankeeda carruurtooduna ayna shaqo gelin ayaan ku rafaadaynay erayadii aan isticmaali jirnay waxaa ka mid ah shalay ninka aabbihii beertu u baxday ee loda badan bay gabdhuhu jeclaan jireen ee hooyadii kolkay ceel ka tagto u dhaamin jireen laakiin maanta hebel dowladda mushaar ma ka qaataa wax la yidhaah baa jira ninka ugu hanti badan maanta ugu loo badan waashmaanka iskuulka ilaalinaya ama caafimaadka ayaa raasamaal haystoo laga jecel yahay sidaa darteed erayadii aan isticmaalayna kuwaasay ahayd maadaama oo xilli waxbarasho la gaadhay nin walibana ilmihiisii uu mushaar qaatay maanta maba ah in waxaa soo xareeya la ina yidhaahdo raggaan shalay soo xareeya lahayn waa kuwan weliba daada maaha waa daada ka waaweyn weliba intooda badan kuwani waa kuwii dambe raggaan shalay ku qasbayna waxbarashada dhammaan maanta waa master iyo degree dibloom wax yar baa ka haysta anu waxaan leeyahay shalay dadkan oo dhandhamaynin baan 4 nin ku dhex soconay oo xafiisyada ka socota oon garanaynin oon u tilmaamayna waxbarashadu noocaasay noqon laakiin maanta oo intifaaceedii la haysto inaan garaweyna waa dhaliilinteeda leeg marka waxaan leeyahay horta aqoonyahankiiyo degmada Gursum baa tihiin qabalee dad waxbartay ayna joogin ma jiro dadkiina waxbartay oo marka hore hadduu DA yahay qabalayga joogo hadduu yahay maxaa la yidhaahdaa macallimiinta hadduu yahay maareeyaha hadduu yahay ka caafimaadka wixii wax lagu gaaro waa waxbarashay intii naas iyo komitee waa dad gacanta isqabsataan wax dhimanaya ma jiro marka waa inaan ballan qaadnaa inaan waxbarashada adkayno faa'iidadeediina aan dhandhaminay maanta ina dhibi mayso wakaabaan leenahay muxuu ahaa cabdicasiis iyo ninkii la odhan jiray shucayb maanta ayaa inoo hor fadhiya soo iyagii maaha maanta inay kuwani waxayna faraan kuwii la farayay inaan innaga noqonno waa dhaliil marka waxaan leeyahay idinkuna isku hawla yaa macallinka arday yari dhib bay ku keentaa soo ma garanaysaan
وحويان عرورتا هلا أوريو أمر هلا وبحيو جناح ما سميتري جناح سمايا معلم كفرصات ده ونقول حير العلي لو جم سو دعوين كرو قد لو جم سو حفيزنا لو جم سو دعوين كرو منجمتي سو مشرو منجمتي كوميتي سو مشرو وبدأ تقول لي إن منجمتي كوميتي سو مشرو منجمتي كنت فريستان قانا كجارن نكي المي سكاري ويا ساعة بس قان نوع عاص أو جناحه تكره حلقة القرآن كيو أرضي كسو بحيسو هي حلقة سكول كلا تجي يلا بدأنا مارين وسمية آدي أبان الدين سلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحليلها عبد النور ناصر أحمد وحسن. مركا وحن قضبك معنا وحن كديبنيا قضبك وحبرشة دتك وين مقصو يعني وحكد ديبنيا. فحويا عيالك سدا هرتا معنا ويلكا يجوه الرئيب يعني كل حسنا عيالك يرير وحويا وحبرشة دتك وين بام مهم هرتا سدا اللود بدنيا سنتردا معنا دقمد وحاجة دتك وين هرتا وحجايل كياي دتك وين هدي البحان دتك يرير ولبريا وحبرشة وحوا توس بلو يلو صو حاضرنيا وحبرشة دتك وين حوج هلا صارنا ولاي وحبرشة دتك وين سنترka golbarwaaqo hal dugsiyan ka asaasnay sanadan oo waliba aan anagu iskana lacagta aan isaga bixinayn marka waxa loo baahan yahay waxbarashada dadka waaweyn sida madaxfisada ku dhawaajiyay in xoog la saaro dugsiyo waxbarashada dadka waaweyn la furo qabalayaha dhexdeeda ilaa degmada gabi la isku wada xidho dadka waaweyn marka ilbaxaan ka bacdiga waxbarashada waxay tahay ay fahmayaan ciyaalka yar marka toos baa la soo xaadirnaya maamul lakum rafaaday magacaygu waa Farxaan Cabdi Bashiir waxaan ahay maareeyaha centerka Allaago waxaan horta waxbarashada kaga hadlaynay horta waa arday tayeysan oo la helo marka arday tayeysan hadii la helo bulshadu isbedelaysaa nolosha miyiga iyo magaaladuba saasoo tahay horta 1 ilaa iyo 6 horta tayo ka fiican ma jirto oo la sameyn lahaa sababtoo hadee 1 ilaa iyo 6 waa tayada ugu fiican qofku bayska 1 ka dhismayo waa 1 ilaa iyo 6 kadibna wuxuu gudbayaa maxaa la yiraahdaa isbedelkii maadaama saatay aanu hal fikrad baan ku darsanayaa si tayada ardayda waxbarashada kor loogu qaado waa in bil walba markay saa u gaadho bisha markay saa u gaadhaba waa in loo qabtaa tartankaasi oo ardayda kaalmaha ardayda macnaha maxaa la yiraahdaa fasalada oo dhan inta loo qabto 1 ilaa 6 tartan gaar ah loo sameeyo arday maxaa la yiraahdaa fasalada kaalmaha 1 gala ugu maxaa la yiraahdaa su'aalaha aad uga jawaabo in la siiyo shilimaad taasi waxay moral gelinaysaa ardayda kale bishiiba si loo eego heerka ay isbedelkooda bishan maxaa iska bedelay bishan maxaa ku soo kordhay si loo yiraahdo waa in bil walba loo qabtaa tartan sidaas ay isbedel weyn uu ku yiman karaya oo arday tayeysan loo helayaa ani ahaantayda halkaana laga sii dadaalaan leeyahay dhinaca kalena maxaa la yiraahdaa ardayda waa inaan aan xoojina sida aan u keeni lahayn oo u soo xareyn lahayn inaga maamulka hadii aan horta iska saaro dusha arday waan soo xareynaynaa ardaydana waan ka qayb gelin karaynaa wax kastana kaliya muhiimadu xataa arday maamulku hadii uu ka qayb qaato ardayda oo iyaga laftarkooda moral geli ardayga xariifka ku dhex jira hadii ay il gaar ku ilaaliyaan kuwa kale way ku dayanayaan waayo carruurtu way isku daydaan carruurtu ku dayasho weeyaan marka haddaan saan xoojino isbedel badan baa imanaya waxbarashaduna aad bay iskaga bedelaysaa degmada Gursum sanadkan iyo sanadaha dambe soo socdaba insha Allah saddex qodob baan ka hadlayaa mid weeyana waxa weeye xagga waalida maartani xagga macallimiinta midna maartani waxa weeye aqoonta iyo maartani waxbarashadu faa'iido ay leedahay wada garanayna tusaale ahaan oo kale aqal madow haddii wax weeye masaajid baa dad soo gasho habeen oo leerku tago marka waxa uu galay walbahaar baa uu galay kabaha xagee dhigatay iyo xagee ka baxda aqoon la'aantu marka waxa weeyaan waa aqalan ila islaayeen ku gaheysay waxay jireen aqoon la'aan waa iftiin la'aan waa aqalan ila islaayeen oo kale weeyaan marka ruuxa aqoonta leh iyo ruuxa aan aqoonta lahayna macnaha waxa ay isku yihiin oo lagu qiimeeyaa xayawaanka waxa weeye sida ayda oo kale gorgorka oo kale coomaadiga oo kale waxay xayawaanada kale kaga qiimo badan yihiin markii cilmi aad barto ee tarbiyayso ayga oo kale oo amarkaaga shuruud waxa weeye waxa uu waxa weeye uu ku shaqeeyo wuxuu ku soo qabto ku soo waariyana waa ku xalaal markii shuruudii laga helo maxaa keentaa waa cilmi waa xayawaan cilmigaas keenay haddii uuna waxa weeye ka kale laakiin aan tababarka lahayn
wuxuu cunayo waxa weeye wuxuu ku qabtaa waa waqti weyn marka aqoontu waxa weeye aan xayawaanka ayaa lagu kala qiimeeyaa haadka duulay oo kale marka horta waxa waa in saa loola socdo aqoontu qiimaha ay leedahay macallimiinta waxaa la yidhahdaa macallinku waa shamac gubanaya laakiin dadka kale u iftiimaya ina almucallima shamcatun taxriqu nafsaha wa tudiilu laakhiriin bale macallinku waa shamac gubanaya aqalka waxa weeye markii wax leelku tagay shamaca shidato shamac wuu dhammaanayaa laakiin dadka waxa weeye meesha fadhiyaay waxa weeye ku manaafacasanayaan macallinku waxa weeye waa saasoo kale wuu dhiban yahay culays badan baa saaran buuq badan baa ku furan حتى وحيالها مارتن وحوي وحبرشة مارتن وحوي سندريك وحوي مارتن الله فصح دور بلود صدح بلود ما عاصو قال وين وصورنا مسكاديس أرضي ودبريهين مسكها معلق دبر موجستان مركا وحنا لنا معلمين تنا إن هذا وحوي وح لو تبعه ولا صوص صاروا ولا مال جنيو من آذان كأوقين بدن هوش هيسان هول آذوي ويان مركا وحنا لنا جزاكم الله خير بنا هوش كعاجزنا تذكر صوص صارا وحوي أن دلال كينا لوجبارة معلمكم إن بدن وحكو أرض وحكو دايرة إن بدن والدك يا معلم خبرية مركا تربية في عن أي 10 سنة يودينكم در الله مليونية وهوش إني هيستا إن دلال كسير والله تام ما نتكربنا نبى وحولي أقوانتا ويدي هوري وحولي حداد حول الدوني حمرات تشوبولي حداد حول الدونينا حمرات تشوب هذا حرقة دونينا حمراء بتشوفوني حمراء محيطها وفرس وي ويلي هو فرتها قيمة هانشري واللي دولي شري مركا وحوي معناها هذا وحوي حيل دونينا دي دمرك وحوي ويدا وحوي صفر اللقمير شرين مال بون بلقى بحين شري هذا حرقة دوني سو حمراء بتشوفوني هذا الحيل دوني حمراء بتشوف هذا الحيل دوني حمراء بتشوف وحان لنا هاي هذا شرف يا كرامة دوني سو أقونت كاغ مغوا أقونت بتشوف haddaad waxa weeye gobonnimo iyo wax weeye maal doonayso aqoonta ag joog maxaa yeelay aqoontu iyo cilmigu wuu ku ilaaliyaa aduu ku ilaaliyaa laakiin maalku wuxuu kaaga baahan yahay inaad ilaaliso oo meel ku xifido oo banka dhigto oo tuuga ka ilaaliso yuu baahan yahay laakiin cilmigu meel kasta joogto waxa weeye ku ilaalinaya wuu ku raacaya marka horta basaha loo ogaado aniga kulli hadalkayga soo gabagabeynaya kulli hadalkan wada iga dambeyn doono waxa weeyaan takale ardayda waxa weeye fasal koowaad fasal lixaad in waxa weeye xoog la saaray waa muhiim haanti gunta ka toontaa baa leeyahay guriga hadii seeskiisa la adkeeyo waxa weeye madumo ciyaal arku madumo marka hoos waa in laga soo dhisay waa sax weeye rag iyo ku raacsanaay mid kale aan ku darayaa waxa aan leeyahay dugsiyada hoose ilaa kuwa dhaxaba in badan waxa weeyaan macnaha waxa maartaan wax yar waxa jirta dhaliil aan leenahay baa jirta وحوي الدلكن أي وحوي إثيوبيا فرق أي شغله لقد بتدحدحاض ولا جه الله لقد محرجة إن بدنا واحد كيس وحوي الدلكن ما تاني إذا وساعد مدقري وتا أما وحوي معاك وحوي ما تاني وحوي دبلو وتا إنه لقد أحمرجة قرنين مركب واحد علينا ولا ليال سوى وحوي أي نفضل هذا حلقة يفسنه لقد أحمرجة وإن الدكس يده وإن هو حوج سرّا محايا لي وحويان وحال شقة وحوي دردان كان كشقة كذا تمام معلم بعد نقول شقات كيل وحوي فدرالك حدا وحوي اللقد بعد قرنين لبي لا أنا وحى الله اللقد أحمرية حوج هلا صاران له هي اللقطة كلام الإنسان إنجليز كوكليو هلا برتاني بسم الله waxaa saaka noo qabsaamay shirweyni waxbarashada sanad dugsiyeedka 2015 shirweynaas oo halkabigiisu ahaa jiil aqoon lagu barbaarshay bulshada Soomaaliyeed kaga baxda ayaa waxaan macnaha halka shirka nagala soo qayb galay maamulada kala duwan ee dugsiyada qabalayada culimada dhalinyarada iyo haweenka shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii loo soo xareyn lahaa ardayda dugsiyadka gaadhay maadaama sanadkan xoogan saareen macnaha sidii aan u helayn arday tayo leh oo jiil hubaysan oo ku hubaysan aqoon waxa macnaha shirka si wanaagsan uga wada hadalay maamulada dugsiyadana macnaha ay ballan qaadeen inay sii xoojinayaan dadaalka soo xareynta ardayda xafiiska waxbarashadana wuxuu mar walba u taagan yahay sidii uu soo saari lahaa jiil ku tayeysan arday aqoon iyo tayo leh sanadkan kulli istiraatiijiyad cusub ee 2015 xafiiska waxbarashada deegaan waxbarashada qaab geedi socodkeedu yahay in macnaha waxbarashada tayo in macnaha xoog la saaro
waayo la socotaan hadda in macnaha ardayda 12aadka lagu qaadiyay imtixaanadii heer federaal jaamacadaha sanadkan macnaha si macnaha imtixaankaas iyo qashkaas la soo bartay loo gaashaanto wuxuu xafiiska macnaha aan ballan qaadayna ka xafiisaan waxbarashada ee degmada Gursum inaynu macnaha soo saarno arday ku hubaysan aqoon iyo tayo shirku marka ujeedada ugu muhiimsan oo saarnaa waxay ahayd in macnaha la soo xareeyo ardayda dugsiyada ka gaadhay iyo sidii loo soo saari lahaa arday tayo leh qodobo kooban oo waxa jirteen kaga wada hadalnay shirka oo kamid yihiin waxbarashada kooban sidii xooga macnaha loo soo saari lahaa istiraatiijiyada cusub iyo macnaha qodobo badan oo muhiim ah kaga wada hadalnay ayaa waxa macnaha shirweynahan maanta oo ahaa halku dhigayso jiil aqoon lagu barbaarsho ay bulshadu saboolnimo kaga baxda aad baad mahadsantiin bismillaah magacaygu waa Cabdi Cumar Siyaad waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Dhagaxleh maanta waxaan halkan iskugu nimidnay shirweynihii abaabulka waxbarashada ee sanad miisaaniyaadka 2015 runtii shirkan maanta si fiican buu noogu qabsoomay xubno tiro badan ayaa ka soo qayb galay bahdii waxbarashada oo dhan maamulayaashii gudiyadii waalidka iyo gudoomiyaashii sandarada waxay ila muuqataa runtii sidii sanadkii hore si ka fiican in maanta looga soo qayb galay anaga ka maamul ahaan waxaa naga go'an inaan sidii loo baahnaa macnaha ardayda aan u soo xareyno aad baad mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca bahda waxbarashada gaar ahaan magaca dugsiga sare ee magaalada Bas magacaygu waa Bishaar Sagaamil waxaan ahay maamulaha dugsiga sare Abbas Cali tabarka maanta halkan lagu weeyo waxa shirweynihii waxbarashada ee 2015 wacyigelinta bulshada sidii ardayda loo soo xareyn lahaa ama ardayda dugsiyada loo keen lahaa ardayda sanad dugsiyada ka gaadhay si fiican buu shirku iyo tabarka loo qabtay si fiican baa loo soo qayb galay cidii iyo xubnihii loogu talagalay inay tabarka qaataan ama shirka loo qabto waxa weeyaan maamulada iyo santarada iyo hogaaminta waxbarashada hoose ayuu shirkan quseeyay iyo marti sharaf loogu talagalay shirkan si fiican buu u qabsamay waa shirweynihii waxbarashada ee sanad walba caadiyan xafiiska waxbarashadu qaban jiray heer degmo ilaa heer deegaan ilaa heer federaal anigoo inta aan ku soo koobaynin aniga waxaan ahay maamulaha dugsiga sare gaar ahaan dugsiga sare Bambaas wuxuu ku yaalaa waa dugsi central ku yaala dugsiga haddii anagu aan codsiyan aan ka codsano xukuumadda deegaanka dugsiga wuxuu u baahan yahay balaadhin iyo dhisme iyo qalabayn baan u baahanahay haddii salahan dugsiga sare soo qaadana dugsiga waa dugsi 2002 baa la dhisay dugsiga sare Abbas Cali ama magaalada Bas ku yaala dugsiga waa dugsiga standardkiisa lagu talagalay dugsi sare ma aha marka waxaan leenahay xukuumadda deegaanka Soomaalida in codsiga naga loo tixgeliyo oo dugsi loo dhiso oo balaarin lagu sameeyo ayaa ka codsanayna xukuumadda deegaanka midda kale dugsiga ardaydii iyo marka la eego ardaydii baa ka badan oo dugsi ardayda cidhiidhi ku ah galaasyadii kuma filno standardka dugsiga loogu talagalay maaha anoo fursad ugu fadhiisanaya tabarkan noo qabtay maantana tabar waxa runtii muhiim u ah waxbarashada iyo si arday loo soo xariirin lahaa sanad dugsiyadkan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxbartaan barwaaqo gaarane